ma rabno wiil annaga meeshaan laga qaaday inuu ku dhinto gobol maamul kala sheeganaya ama deegaan dad kale ay leeyihiin. waa dad Soomaaliyeed waa runa waa u danqanaynaa laakiin at the same time ma rabno in la yiraahdo waana ku soo xadgudbay oo deegaankeena la yimid oo dadkeena wax la gaarsiiyay iyo waxyaabo sensitive ka ummadda Soomaaliyeed inay ka dhaxdhacdo. waxaan rabaa sidaad maqasheen waxa bilaaban doona feeskii labaad ee dagaalka. feeska labaad ee dagaalka waxaan rabnaa inuu ka bilowdo gobolka Hiiraan waqtigu bilaabanana waa ogaan doontaan. laakiin ororodkii hore ma jiri doono oo gobolka kale iyo xoreyntooda iyo waxaasi ma jiri doonto. waxaan rabnaa in xuduudaha annaga aan leenahay iyo deegaanka aan ku teedsanay oo gobolka Hiiraan kaliya aan ka howlgalno. wixii intaas ka baxsan dawladda joogto qabaa'ilada degan in ayaga isku tashadaan. ma rabno wiil annaga meeshaan laga qaaday inuu ku dhinto gobol maamul kala sheeganaya ama deegaan dad kale ay leeyihiin. waa dad Soomaaliyeed waa runa waa u danqanaynaa laakiin at the same time ma rabno in la yiraahdo waana ku soo xadgudbay oo deegaankeena la yimid oo dadkeena wax la gaarsiiyay iyo waxyaabo sensitive ka ummadda Soomaaliyeed inay ka dhaxdhacdo. ma rabno feeska labaad waa galeynaa waana galeysaan insha Allah taala. hadalkayga habeenkii ugu dambeysay oo idinku imid meeshii qabna ahayd ama bacda waxa ku jirtay inaad ka daba tagtaan nimankaas walaalihiin oo muqorisi maraayo oo ilaa iyo meeshii uu dagaalka idin la gaaro aad tagtaan. waa ka dhabayseen waxaad tagteen aadan yabaal waxaad tagteen maali masagawa dhulkii dhammaa oo dagaalka uu ka socday. inkasta oo gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ay yihiin dad walaalo deegaan haddana waa gudubteen xuduudiina. waana aadan uga helay sidaad iga ajiibteen hadalka idin maanta waxa idin leeyahay mid sidoo kale laakiin ka duwan. ma rabna inaan xuduudaha goyno ma rabna inaan dad kale u talaabno. waxaan rabnaa deegaankeena iyo dalkeena intuu ku fadhiyo inaad ilaalisaan howlgal hadii loo baahdana aad wajiga labaad meeshaas aad ka fulisaan.